isbahaysiga siyaasadda Jamhuuriyadda Somaliland oo war-saxaafadeed ay soo saareen ayaa waxa uu dhignaa sida tan. Isbahaysiga siyaasadda Jamhuuriyadda Somaliland dalada ku midooban dhammaan ururada isdiiwaangeliyay waxay mudugada la qaybsanayaan una tacsiideynayaan ehelada qaraabada iyo dhammaanba shacabweynaha xiriirta ee reer Somaliland. Dhimashada 5 qof iyo caqli xumada nagaga dhintay iyo dhaawaca 60 kor u dhaafay oo aan looga baryin caafimaad degdeg ah. Isbahaysiga siyaasadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay cambaareenayaan labada xisbi ee waddan iyo cud in iyagoo ogin mudaharaadku yahay xuquuq aasaasi ah oo muwaadiniinta dastuurka jamhuuriyadda u jeediyay isla markaasina loo ogolaaday aan si nidaamsan oo la maamuli karayo u habaynin mudaharaadkaasi soona dhaafay goobihii loo asteeyay isla qaateen xukuumadda taasi oo lagaga baaqsan karayay dhibaatada ka dhalatay mudaharaadkaasi ee baaxadda leh. sidoo kale isbahaysiga ururadu waxay cambaareen kaloo taalla midow dirayaan xukuumadda iyaduna si adag oo rasaas ay u isticmaalayso ugu jawaabtay mudaharaadayaashaasi. isbahaysiga ururada siyaasaddu waxay cod dheer ugu baaqayaan asxaabta mucaaradka iyo xukuumaddaba in nabad iyo xasiloonida la ilaaliyo sharciga iyo dastuurkana loo soo noqdo. ugu dambeyntii isbahaysiga urur siyaasadeedu waxay ugu baaqayaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dad goba inay naftooda iyo hantidooda iyo karaamadooda aanay u khasaareen waxaan u qalmin. asxaabta ururada iyo cid kasta oo la doortay waxay idinku leeyihiin cod ee dhig idinkuma laha. Injineer Xamse Xasan Oday, xoghayaha isbahaysiga, Dr. Salebaan Ciise Xagle Toosiye.